heer wuxuu gaaray libaaxu oo dadka saaran gaadhi dushiisa kala dego dadna sidaas xir libaax loogu bixiyay marka barkii dambe ee dadku iska degeen ee dhulka la galay ee lagu noolaaday marka libaaxii uu iska tegay uu jooga buuraha qaarkood laakiin kuma badna cidna xuguma geysto hadeer marka halkan inaga sareysa buur baa inaga sareysa iyo qabaqowsino halkan kale god baa inaga hooseeya marka waxa dhici jiray dadka halkan mara ee u safraya xeebaha sii jeeda sida mayd xiis iyo xeebaha sii jeeda wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska ee Soomaaliland anigu waxaan u aqaanaa wasaarad aan jirinba waayo halkan dadkana waxbay uga sameyn lahayd haday wasaarad jirta tahay dadkana waxbay uga sameyn lahayd iyadana waxbay ka samaysan lahayd dad amnigooda sugay dadka u sameyn lahayd lacag baa laga qaadan lahaa dadku iyagoo habiyo ku faraxsan bay lacagta bixin lahaayeen wadooyinkan loo hagaajin lahaa dhulay ku nastaan baa loo sameyn lahaa dhulay ku cunteeyaan baa loo sameyn lahaa hoteelada dalxiis oo dawladdu leedahay baa buuraha dhakadeeda laga sameyn lahaa imika waxa inaga sareysa buur waxa inaga sareysa mala inaan ku qiyaasay dhowr kiiloomitir saasay noogu soo foorartaa ilaahay baa haya wadhagaxyaanta haday inagu soo dunto imika dami inagu soo tiraahdo inta wax xawaalay noqonana magaalada Ceergaabo xarunta gobolka Sanaag waxay horumar u tahay ilbaxnimada iyo xadaaradda waana magaalada ugu cimilada fiican leh guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland sidoo kale Ceergaabo waa caasimadda gobolka Sanaag ugu khayraadka badan leh guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa gobol koobsaday bari buuro iyo bad magaalada Ceergaabo xarunta gobolka Sanaag waxay astaan u tahay buuraleyda caanka ah ee sida Daalo Mucsalay Tabca Halmadow Suryo iyo qaar kale oo badan magaalada Ceergaabo xarunta gobolka Sanaag waa gobolka ugu khayraadka badan leh guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waana gobolka ugu dalxiiska wanaagsan leh markaad gaadho waqooyiga gobolka Sanaag degmada Godno biyo cas iyo dooxada Halmadow waxaad galaysaa dhul cagaaran oo dalxiiska aad ugu wanaagsan guud ahaanba gobolka Sanaag waa gobol koobsaday bilic iyo xadaarad ilbaxnimo iyo khayraad fara badan oo ku duugan sida maxorka iyo maydiga warbixinteena ayaynu ku dhigan doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan gobolka Sanaag waxaanu ku sugannahay buuraleyda waqooyiga gobolka Sanaag oo ah gobol ku hoodan ah wax soo saarka kala duwan gobolka Sanaag waa gobolka ugu dihiin guud ahaan gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama deegaanada Soomaalida faanbugac soo dhawow in badan bad halkan dalxiis u timi oo aad deegaan ka timi bal waxaad nooga warbixisaa halkan aynu imika taaganahay waa xir libaax maxaa xir libaax loogu bixiyay horta soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa Suxufi Saciid Xalays marka koobaad waa mahadsan tahay mar labaadka waxaan rabaa inaan horta meeshan kaaga warramo sababta loogu bixiyay xir libaax intaanan kaaga warramin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu joogno buuraleyda gobolka waqooyiga gobolka Sanaag oo calanka Soomaaliland inta xuud kale ee aynu ku dhaadana inaga dul babanayo waxaan leeyahay alxamdulillaah rabbil caalamiin inta marka laga yimaado horta meeshan waxa la dhahaa xir libaax waxay xagga waqooyi ama galbeed ka sii xigtaa meesha la dhaho godka la dhaho Tabca ee laga hoostiso wixii garanaya wixii arkana way arkeen wixii maqlayna godka laga hoostiso marka wadada halkaas soo martaa ee ka timaada Ceergaabo ayaa marta marka waa wadada ilaa mayd gasha ee xeeb u dhaadhacda marka meeshan xir libaax wax loogu bixiyay berigii hore ayaa waxa joogi jiray libaaxyadaasi ayaa deganaa marka halkan inaga sareysa buur baa inaga sareysa iyo qabaqowsino halkan kale god baa inaga hooseeya marka waxa dhici jiray dadka halkan mara ee u safraya xeebaha sii jeeda sida mayd xiis iyo xeebaha sii jeeda dhulkan horta marka ugu horeysa siciida waxa lagu dirayaa xadaaradda Soomaaliland dhulka ka soo bilaamatay marka laba meelood oo dadku dhahaan qayb waa Saylac iyo xagga qaybna waa mayd iyo xiis iyo xaggan marka xadaaradda ama wax kala iibsigu xaggan bari hore ka iman jireen dadka halkan mara ayaa gabadhi yareeyay mari jiray gabadhi waaweyn baa la raaci jiray dadna heer wuxuu gaaray libaaxu oo dadka saaran gaadhi dushiisa kala dego dadna sidaas xir libaax loogu bixiyay marka barkii dambe ee dadku iska degeen ee dhulka la galay ee lagu noolaaday marka libaaxii uu iska tegay uu jooga buuraha qaarkood laakiin kuma badna cidna xuguma geysto hadeer horta niyow inta igu maqaala deegaanadan anigu dhowr goor baan imi waana u dhashay anigu heer Sanaaga baan ahay waxa igu maqaala horta deegaankan inuu wax soo saarka dalxiiska hodan ku yahay waxyaabaha uu hodanka ku yahay wax kamid ah dahabka nimanka wadadan aynu marana waxay tagaysaa meesha la dhaho cishiiday tagaysaa waa warshadaha ka samaysan waa meesha dahabka ka soo baxo waxa kale oo halka iyana looga beeraa xaysimo oo iyana dahabka hadda laga qodo
marka gobolkani wuxuu caan ku yahay wax soo saarka dhirta cagaarka beeraha haddii halkan wad aragtaa meeshaan joogno marka qudradii nooc walba iyadoo leh bay joogtaa bay taallaa wayna ka cunanaa marka waxaan halkan kaga faa'iideysanayaa Siciidow oo aan rabaa inaan kaga faa'iideysto wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska ee Soomaaliland anigu waxaan u aqaanaa wasaarad aan jirinba waayo halkan dadkana waxbay uga samayn lahayd hadday wasaarad jirta tahay dadkana waxbay uga samayn lahayd iyadana waxbay ka samaysan lahayd imka dadka soo gelaya imka nin baa halkan beer baan joognaa calamaanta nin baa samaystay ka taagtay isaga isku abaabulay cidi kama gacan siin wasaaraddaasi waxaan garanayaa inta dadka wadada u samaysaan u hagaajisaan halka laga soo garan istabay ku samayn lahayd dad amnigooda sugay dadka u samayn lahayd lacag baa laga qaadan lahaa dadku iyagoo habiyo ku faraxsan bay lacagta bixin lahaayeen wadooyinka loo hagaajin lahaa dhulay ku nastaan baa loo samayn lahaa dhulay ku cunteeyaan baa loo samayn lahaa hoteelada dalxiis oo dawladdu leedahay baa buuraha dhakadeeda laga samayn lahaa waxa weeye wasaaraduna iyaduna dhaqaalaha ka soo geli lahaa dadkuna waxay u iman lahayd si qayr xada oo waxay noqon lahayd meesha ugu badan loo soo dalxiis tago meesha iminka sababta caawada ugu weyn dadku iman kari waayeen wax ka mid ah wada xumo meesha dibuurama tahay gawaadhidii diiq bay ku imanayaan sida gawaadhida calaawiyada xirtoobada gawaadhidaas saadee yimaada marka dadkii u wada saamixi maayo inay wada yimaadaan marka wasaaradda aad iyo aad baan cambaaraynaya runtii shaqadeedii ma hayso horta waxyaabaha la yaab kale waxa ka mid ah iminka haddadaas in taaganahayba iminka waxa inaga sarreysa buur waxa inaga sarreysaa malaa inaan ku qiyaasay dhowr kiiloomitir saasay inagu soo foorartaa ilaahay baa haya wadhagaxyaanta hadday inagu soo dunto iminka dami inagu soo tiraahdo waa xawaalay noqonanaa wax allaale waxa inaga hor joogaa ma jiro halkan waxa ah godkii isagana la dalooliyey oo laga hoos tusayo waa waxyaabo mucjisooyinka iminka halkan markaan istaagno waxa ah jar inaga hooseeya jarka inaga hooseeya laba mucjisaa ku jira daruurta inaga sarreysa ee cirka dhulka qaarka aynu ku aragnay cirka ka timaada hoosteena ka imanaysa waa wax mucjisaad la yaabta daruurtii oo hoosaadi ka timaasa inoo dhaafasa waxa kale mucjisaa iminka maro ama shay fudud haddii aad halkaa ku tuurto cabaar marka ku maqnaadaa buu soo noqonaya waa waxyaabo u baahan cilmi baaris lagu sameeyo laga faa'iideysto dabeelaha noocaasa laga faa'iideysto daruurahan hoos ka soo baxaya laga faa'iideysto dhulkan iska qoyan ee 24 hours roobku iska helayay iska qoyan beera looga faa'iideeyo dadka qalab la siiyo waa waxyaabo mucjisooyin oo badan ayuu leeyahay iminka halkaa waxaan ku soo dhaafnay dhagaxa dhaho hay ku soo dhicin dhagaxaasi waa dhagax wuxuu ku taagan yahay wax yar inta leeg wadadu qarkeediisa u saaran yahay saasa loo hoos maraya waa daabad ilaahay halkiisaas ku haya ma dhaco tan iyo weligiisaas u taagnaa waxyaabaha mucjisooyinka aan wadanka ku arkay marka buuraha leeyahay waxay leeyihiin mucjisooyin badan dadkana waxaan leeyahay dhamaantiin soo wada booqda ee waxna laga qabto laba qoloba fariin baan u dirayaa waxaan fariin u dirayaa shacabka Soomaaliland gaar ahaan heer Sanaag waxaan kaloo fariin u dirayaa xukuumadda cusub ee hadda dalka ku tii hore tagtay waxba aan fariin u diri maayo mid horta waxaan u dirayaa shacabka heer Sanaag gaar ahaan shacabka heer Soomaaliland gaar ahaan shacabka heer Sanaag war isku tashi bulsho ayaa wax walba lagu noqdaa waxaan idinku baaqi lahaa waad awoodaan lacag ka ururiya qurbajoog iyo qurqurjoog kaca wadooyinkan riski badan baa ka jira laba gaari iskuma dhaafi karto ka qura ee xitaa marayaba intaas hulaag ka ag marayo oo khatar ku jira wadooyin samaysta dhul lagu nasto samaysta deegaankiina u tashada wax allaala waxa ka tari kartaan qabsada markaas dawladana wax ka soo qaadan kartaano aanon kartaan waxa aan haynaa wax noogu dara iminka inta yar ilaa marka la soo gaarayo karin ayaa dib badan naga kulmi jiray jay baa la sameeyay bulshada dhigtay aad baan ugu mahadceliyay waxa leeyahay laakiin inta kasi kordhiye waxaan kaloo halkan fariin uga dirayaa xukuumadda cusub ee la doortay iyo Cabdiraxmaan uu hogaaminayo mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaan leeyahay waa in gobolkan Sanaag si aada isha loogu fiiriyaa waa in wax laga qabtaa wadooyinkan dekada mayd aadka u quruxda badan waa in la dhisaa dekada waa in wadada la sameeyaa waa in dadka riskiga laga badbaadiyaa waayo aakhira dadkan idinka wax lidinka weydiinaya